madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa si wada jir ah ula kulmay mas'uuliyiinta ka kala socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo ay kala hogaaminayeen Jean Pierre Gohema iyo Lamantina Lamamra oo loo xilsaaray ka shaqaynta arrimaha dhaqaale u raadinta howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. mas'uuliyiintan ka socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa uga mahadceliyay madaxweyne Farmaajo dadaalada dib u heshiisiinta uu dalka ka wado iyagoo soo dhaweeyay talaabadii uu qaaday madaxweyne Farmaajo ee ku aadaneed xalinta khilaafaadka baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay muujiyeen sida ay beesha caalamka uga go'an tahay garab istaagga Soomaaliya. kulankan oo ay goobjoog ka ahaayeen danjirayaasha gaarka ah ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador Michel Keaton iyo Francesca Madera, ayuu madaxweyne Farmaajo waxa uu kaga hadlay ahmiyadda dhismaha ciidanka ay u leeyihiin dowladda uu hogaaminayo, isla markaana uu sheegay madaxweynuhu in iminka uu gacanta ku hayo dib u habaynta ciidamada qalabka sida. madaxweyne Farmaajo ayaa ka codsaday in habka dhaqaale u raadinta ciidanka AMISOM iyo ciidamada qaramada midoobay lagu daro in ciidanka qaranka Soomaaliya loo helo dhaqaale ku filan, kuwaas oo u suurtagelinaya inay ku filnaadaan la wareegidda amniga dalka Soomaaliya. kulankan oo sidoo kale looga hadlay arrimaha dib u heshiisiinta, tayeenta ciidanka iyo la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada, ayuu madaxweyne Farmaajo waxa uu ka hadlay qorshaha ay dowladda Soomaaliya ee kaga aadan la dagaalanka kooxaha amniga ka wada gudaha dalka Soomaaliya. kulankan madaxweyne Farmaajo iyo mas'uuliyiinta ka kala socota qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu horaantii bishii hore uu degay xarunta wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya si uu waqti badan u geliyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka, taasi oo muujinaysa ka go'naanshaha dowladda Soomaaliya dib u dhiska ciidanka amniga dalka. Cumar Maxamed Somane, Universal TV, Muqdisho.